بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات وفرق اللواد وحلقة اللواد محاضرة أني أنا عنوانك وقدقني كشف القناع عن حقيقة جماعة الصادعون بالحق waxaynu soo baranay darsigeenii hore ee xalay ku soo qaadanay oo fadhigii xalay taariikhda fikirkani uu leeyahay iyo xagee uu ka soo bilowday iyo maraaxiishuu soo maray iyo Soomaaliya sidoo ku soo galay ama Soomaalida ku soo gaadhay iyo qoladani meeshay kaga abtirsadaan fikirkaas aan taariikhdiisa soo sheegnay waxaa u dambeeyay oo aynu ka hadlaynay bayaanka ay akhriyeen oo laba bayaan oo kala dambeeyay ah waxyaalaha uu xambaarsan yahay ayaynu bilownay waxaan tilmaanay waxa ugu horeeya la mulaaxadayn karo inay ka mid tahay inuu iska hor imaanayo oo isaga oo kooban waraaqa kooban ah haddana afkaar iska hor imaanaysa inay ku jirto waana wax kasta oo aan xaq ahayn ayaa dabeecadiisu ay tahay inuu iska hor yimaado oo isburiyo haddaynu marka qodob baynu sheegnay qodobka labaad ku darno meelaha isburinaysa ee bayaanka ku yimid waxaa ka mid ah markay ka hadlayeen جماعات إسلامية هي موقف كأي كقبان أيا وحى كويمت هذا الإسكهر ماني هذا الكاسي سيدنا ويالا وحيليهن أو بيانك أوليه إن منهجنا الذي بيناه يختلف مع مناهج الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة سواء تلك التي تتخذ العنف سبيلا للوصول إلى الحكم لإقامة الإسلام أو تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك المنشغلة بالقضايا الجزئية والمخالفات الفرعية في حياة الناس غافلين عن غياب أصل التوحيد عن حياتهم meesha uu fiirsada wuxuu leeyahay manhajka naga wuxuu ka duwan yahay jamaacadka kale islaamiga ah ee saaxada jooga ama ha noqoto mid dagaalka iyo gacanka hadalka xukunka si ay u gaadho u marta si islaamka u istaajiso ama midda xukunka si ay u gaadho u marta in ay golayaasha baarlamaanka iyo anshitada siyaasiga ijtimaaciga inay baabkaas halka jidka wax ku raadiso ama ha noqoto jamaacadka ku mashquulsan arrimo juz'i ah waxyaalo iska yar iyo mukhalafaad farci ah aan sii waaweynayn oo nolosha dadka ka mid ah jamaacadkii marka hadlay wuxuu yiri ayaga oo moog in tawxiidka asalkiisii uu ka maqan yahay noloshooda يهين وجماعاتك إسلامية أصل كي توحيدك نلشوا ضوا كما قيه طيب قضبك هلك قبتمر كذب واحد هان هذا الكوسي وذوحيري وحير كذب وهذه الجماعات التي تعلن أنها قامت لإعلاء كلمة الله دون أن تلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لها علينا حق الولاء العام للمسلمين جماعات كاسي وحي نقوليهن ولها جود مسلمين تليه وإن كنا نعتقد خطأ مناهجها
وعدم إمكانية تحقيق الهدف الذي تعلنه من خلال هذه المناهج، وندعو لها بالتوفيق والرشاد، ونألم لما يؤلمها ولما تعانيه من اضطهاد وحرب من الجاهلية. وحوليه جماعات كاس ولا نقوليه ولا هجود المسلمين تنقوليه. طيب إن كستون اعتقاد سنة هي شدك أي مرين يمنهج كي الطريق ينوك خلديه شدك أي مرين إننا كو حقيقين كرين وحي الصعدان واه إن دين إلهي يحكم كشرع يسوع عليا وحيلي ورد عينينا توفيق الرشاد إنه لا يهنوني التوفيق ضوافجين ورد عينينا وح حنوتشنا يوان لحنون صنينا dhibaatada iyo dagaalka ay jaahiliyadu ku hayso iyadana waa ka xanuunsanaynaa jamaacadkaasi marka waxay nagu leeyihiin walaha muslimiintu nagu leeyihiin muslimiinta walihii ay isku lahaayeen bay nagu leeyihiin طيب maxaad soo marteen marka maxaad soo marnay in tawxiidka asalkiisii noloshooda ka maqan yahay haddii xarakaadkan iyo jamaacaadkan tawxiidka asalkiisii noloshooda ka maqan yahay seebay muslimiin ku noqdeen walale seebay walihii muslimiinta ku yeesheen tawxiidka asalkiisii waa ka maqan yahay waxay faa'iideynaysaa bimacnaa waa gaalo dhanka kalena waxay leeyihiin walihii muslimiinta inagu leeyihiin si kale haddaan u dhahano marna waxay leeyihiin waa gaalo marna waxay leeyihiin waa muslimiin istisar marka waa hadal iska hor imaanaya mar kale waxaa iska hor imaanaya jamaacadkaasi ay leeyihiin waliha muslimiinta inagu leeyihiin dadka muslimiinta wala khaas isku leeyihiin soo ma oo iimaanku keenay ruuxaad islaamnimada iimaan u ogoshahay wala u leeyahay baa jira walihii nooca ahaa waxay u sugeen oo jamaacadkay u sugeen waxaa ka mid ah تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية وحكم إذا أروردا سي حكم كاي أوقفتان أمرة برلمان نضا أمرة سيدك أرورك إخوان المسلمين كي يوحي لمد أروردا برلمان نضا قلا ودولدها برلمان كودي مجالس تشريع قلا وهلكا سيدا حكم ككرادية kuwaasi walay nagu leeyahay طيب su'aasha iimaanaysa waxay tahay wixii ay madaxda iyo dawladaha ku gaalaysiiyeen muxuu yahay sharciga ilaahay waxaan ahayn bay dajiyeen sharciga ilaahay waxaan ilaahay bay xukumeen jamaacadkii arrinka kula dhex jirayna waa muslimiin shucubta muslimka maxaa lagu gaalaysiiyay bimaana wax weeye sharciga ilaahay ma xukumayaan kuwii baarlamaanaadka dad ku darsaday ee sida xukunka ku raadinayeen waxay leeyihiin waa muslimiin waana walaalahana walay nagu leeyahay waa muslimiin wala nagu leeyahay su'aashu waxay tahay marka wixii aad nidaamka ku gaalaysiiseen mujtamacaadkana ku gaalaysiiseen jamaacada ku dhex jirtay waa muslimadu walay leedahay intii kalena isla isagan ku gaalaysiinay waa tanaaqud تناقض كاسي وحن لجرنين ما نوع أو تكتيك مس إثبات الفكر كوضا كل عينه لأن أصل كفكر يعني أروردا أو يعني غلات في التكفير أصلها أنا يكسو تشيدان عقيدة ده الرسمي وحويان أروردا إسلامي دعوة وضع دين تفافينية meel alla meeshay dooneen ha galeen usluubkay doonaan ha isticmaaleen manhajkay doonaan ha wateen mar haddayna ayaga ka tirsanayn amiirkoodana beeca la gelin inay gaala yihiin baa asalku saas u ahaa iyaga agtooda manhajka asalkiyo caqiidadooda asalka saasay ahayd hadalkan marka hadda meesha ku qoran ee mutanaaqidka ah ma wuxuu ku tusayaa inay ka noqdeen oo jamaacadka islaamiga xukun khaas ah siiyeen mise wuxuu ku tusayaa waa nooc taktiig ah waxoogaa dadku yeena didin baa leeyahay dabinka la isu dhigaya labada kay tahay waa su'aal meesha ku jirta طيب taana waa iska horimaadka labaad oo hadalkii ku jira bayaanka daday marna waa gaala leeyihiin
marna waa muslimiin oo walay leeyihiin ay tilmaamayaan waa dad shaygii ay ku dhaceen qolo lagu gaalaysiiyey qoladii kale ku dhacday aan la gaalaysiinaynin waa طيب waxaan garanaynin waxa meesha ku jiro in la fahmo u baahan masaa'ishan oo al-udhru bil jahli al-udhru bit ta'awul al-udhru bil khata' ma qaban udhru bil ikrah oo ikraha waliba nooc khaas ah ay qabaan طيب tanaaqudka saddexaadi waxa weey oo waxaan oo dhan ka imaanayo nolosha xubnaha ururka ee ka muuqata iska cad xataa amiirkooda ka soo qaad xagee ku nooli ma xiddi kale ku nooli mise dhul kale keenan aan ahayn bay ku nooli dhul keenan ay ku nooliin Soomaa طيب andimadan ay leeyihiin iyo dawladahan ay gaalaysiiyeen biiطlaaq bidun istithnaa bidun tafsiil ay gaalnimada ku xukumeen andimadii bay ku hoos nooliin Soomaa meel kale ku nooli andimadii bay ku hoos nooli qawaaniintii wadciga ahayd ay ummadda dhan diinta kaga saareen sababteeda ayaa ku dul socota misaal mesela hadaan siiyo rag waxa ku jira injineeriin ah waxa ku jira rag asaatiido jaamacaad ka soo baxay jaamacaadna dhiga jaamacaadka iyo ay ka soo baxeen iyo kuway dhigayaanba sida qaalibka waxay u khuduucayaan andimo nidaamyo aadamuhu dajiyay bay u khuduucayaan tuu dhigayo iyo miduu ka soo baxay طيب talabaad way waxa ka daran waa ganacsato ganacsiga caalamiga abu qayb ka yahay andimadaasi caalamiga abuna hoos geli markaad ruqso soo qaadanayso oo ganacsi furanayso nidaamkaad ku soo qaadanaysa waa nidaam wadci ah dawladda ku siinaysaa waa dawladda Allaahid waa gaalo Sooma nidaamka ganacsigaaga xukumayay ma aha nidaamka islaamiga meeshaad hoos joogto nidaamka qaahirka iyo maxaakimtiisa iyo andimada dhaqaalaha iyo waa andimo kale طيب midda xigtay kaba daran waxa weeye oo kaba dhowba ragani baasaboorray wataan Sooma aqoonsi shakhsiyana waa wataan baasaboorrada ay wataan iyo aqoonsiga shakhsiga marka la qaadanayana nidaamka lagu qaadanayo lagu bixinayo waa andimadii wadciga ahaa waliba salka wuxuu ku hayaa marka la sii raaco inaad daacad u tahay dawladdaas inaad dastuurkeeda daacad u tahay inaad nidaamkeeda daacad u tahay baa lagu qaataa adigu ama akhri ama ha akhriin baasaboorkii baad saa ku qaadatay aqoonsigii baad saa ku qaadatay waad xambaarsan tahay nidaamkii aad dadka ku gaalaysiisay baad lugta kula jirtaa bal iskaba dhaafe markaad doonayso inaad furato مثلا مواقعdan tawaasulka Facebook baad furanaysaa YouTube baad furanaysaa marka doonaysa inaad furato system xukama jira system iyo nidaam baa xukuma oo lagu furtaa nidaamka iyo systemka xukumee lagu furtana waa nidaamkii wadciga ahaa noloshiiso dhan ninka marka dadka gaalaysiinaya iyo sheekha amiirka xarakada iyo xubnuhuba noloshoodo dhan waxay ku dhex jiraan andimadii ay dadka ku gaalaysiiyeen adiga hadday kugu dul socoto bal qaar ka mida shaki ma laha ganacsigiisa iyo hoolihiisa iyo caruurtiisa iyo naftiisa iyo markay khatar galaan maxkamaduhu tagi oo isku difaaci tacaakum buu sameyn ila ghayr sharci illah su'aashu waxay isweydiin tahay marka maxaa iyagana gaalnimada u diiday shucuubta muslimkana gaalaysiiyay wixii dadku ku jireen u baad ku jirtaane adeer maxaad idinkuna gaalnimada isugu diideen shucuubtana u gaalaysiiseen haday jawaabtu tahay waanu qasbanahay daruura jirta ikraah baa jira oo shucuubta muslimka iyagu ma jirta maxaa u diiday haday tahay sida hadalka ku cad ee ku imaan doona bayaanka inna ash-shu'uuba raadiya shucuubtu raali bay ku noqotay andimadan wadciga ah haday jawaabtu sida tahayna waxa weeyaan jawaabteedu waxa weeyaan waa u tagi doonaaye
shucuubta inay raali ku tahay andimadan wadciga lagu xukumayo riduhu waa camal qalbi ee seed ku ogaateen ma qalbigoodaad jeexdeen intaasoo ummad ah intaad quluubtooda ogaateen inay waxaan raalli ku tahay miyaad soo ogaateen halla shaqaqtum sadraha sidaas daraaddeed la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waay aniga markay haysato iyo xertayda axkaamtaasi qiil baan raadsan oo gaaloobi maayo shucuubta muslim iyo ummadda inteeda kale markay haysatana waa gaalo murtadiin oo diintay ka baxeen tanaaqud waadixa waa tanaaqudka noocaasee noloshooda ka muuqda ayaa manhajkoodana waadixoo ka muuqda tanaaqudaadkaasi inta haddaan kaga soo gudbo bayaanka sida iclaamiyeen xarakada waxaan aasaasnay bay dhaheen 40 sano ka hor waqti hadda ku aadan 1973 marka taariikhda la fiiriyo 40 sano ma waa 44 sano waa laakiin taariikhdaasi wax badan nagalama sii jireen waxaan baraarujin rabay taariikhdaasi 1973 waa xilliga ninkii جماعة التكفير والهجرة أما جماعة المسلمين يقول بح مصطفى شكري سماي حال السوشيال سنة كاس وسنة كو إعلاميي أرك حبنه سنة أمري إن أي مقالوين كبحان أو أي إنتي هانتيضو هذا إيبيان صحينا قاتان إن يبورها قلان سنة كاسة تكون سجال بقول تضباطني صدح دي حلي الدور قلك باللابين به تاريخ ذا مركب واحد يدين سؤال واحد ملا مقولة الدور كقلبي يكون شريان وحلي قاسة تاريخ ذا كسر باللابين ما حلي قاسة انفصالين وسجوني يجوا أي وحوسة ما يستين وسؤال إسويدين له حيلها ملاحظات قال وحى كم إذا بيانك كم مقضاه بيانكو وحو آد uga fog yahay xaqiiqada iyo waaqica ahkaam waxa ka muuqata aad moodo ilmo yaro dugsiyada hoose ku jira inuu soo saaray ilmo yaro dugsiga hoose dhigta oo xamaasaysan ahkaam ka soo fushay qaar u muuqda ayaa meesha ku qoran wallahi wada yaabaysan markaad aragtaan مثلا waxa kamid hadan miisaal soo qaato wuxuu leeyahay ولم يبق من الإسلام اليوم في واقع الحياة إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وأصبح انتماء الأمة اليوم إلى الإسلام انتماء تاريخيا صوريا لا يحمل شيئا من الحقيقة والواقع وحليه هي إسلامك ما أنت نلش ضدك مرك الله فيريو إسلامك أردن مقع باك سوهري قرآن كينا أنكرية وحكا صهري فرميلكو قرآن طيب أبتركا أي إسدين مسلمين تو أي أمدو مانتدي أمدو أبتركا أي كو أبترسانا يسو إسلام نمدنا كلية وحكو صهري أون دعدة تاريخية أو لغو أبترسانا يو أو أن حقيقة دي واقعة وحبك حنبار سنة مجرد أبتر عن حقيقة أهين إسلام بانا هاي بس أنا وحبت ديري قرآن كينا فر وراء قرآن كلية كسوهر وحكله أو لغو سمي مجرى وهل كاسو قرآن هل كاسو سارسارين هاي وراء يفر اسكو قرآن وميل تعالوا انت وحن هاي مجرى إسلام كينا مقع أي أبتر كاسا كسوهر وركاسم حقيقة هي الميرو ابتدائي حتى كما الله وركاس لأن ستوصل وجوه رمانا يا حقيقة دول كتالا إسلام كي واحد بدن بيال صوما تذكر شهادتين كي بقريان وإسلام كي صلاة دي بتكن يوم مساجد دي بعمر وإسلام كي سكدي بيبحنا يوم وإسلام كي ويسوم يوم بشهر رمضان وإسلام كي ويحجنا يوم عمره سنة وإسلام كي صدقات كي بيلبح يوم وإسلام كي ويسكو غورسنا يانا ويسكو فريانا وكومع ويسكو دحليانا وإسلامك معاملات كذا إن بدن كميدو ganacsigii iyo dhaqdhaqoodii waa islaamki Soomaaliga dumarkoodii ba xijaabana waa islaamki guriyahooda ku dhaqmayo waa islaamki waxana dhan waa waaqic yaalo waa
إسلام كي ما قعبها كسر عارف فيه يا ور إنبا مقنده إنبا مقن إسلام كي هلا بادي جوب أور لفهمي كرو لكن إسلام كي مقع كليه كسر هاي ور عرور يروح نين أضي وركي سما نين علماء وركي سما كاقدرنا القرآن كي كريم كاو وقصوا هاي كليته وراء وقرن يهي قرآن بس وميل إسكيال القرآن كمين تاسا كسوحد القرآن كي صلى ما حفظيه وصلى ما برت وصلى ما أخرنه وصلى إن بدن كجمع دقنه يا ما ماشي إسكيال لا بس أول بنتان سوق هذا نان آخر سنة وهنو برانا وتفسير كيسان دقي سنة وأن أنت محوها أن وضنا قرآن كي فرمل القرآن كو قرآن بس هكسوحد warkaasi war xaqiiqada ka fog waa saas daraadeed baa waxaan leeyahay taqriiban waxaad moodaa dadkani inayna la noolaynba mujtamacaadka muslimka malaha xiddi kale ka yimaadeen wadayaxay ku noolaayeen meel kale ku nooliyeen wax la yaab la waa islaamkii inta ayagu ay tabayaan oo la muhiimsan inta hadii ay meesha ka baxsan tahay islaamkii oo dhan wada maqan islaamka iyo diinta islaamka iyo ahkaamteeda iyo badankeedu waa joogtaa muslimiintuna waa haystaan laakiin wax maqan baa jira oo loo baahan yahay in la baadigo warka saxda ka isaga kaaga darane waxa kamida warka aan isagana xaqiiqada aad uga fog oo meesha ku qoran waxay leeyihiin bashariyada aadamaha bashariyada waxay leeyihiin wal waaqi'u alladhi ya'ishu al bashariyatu al yawm huwa waaqi'un muhaddin li din Allah منذ أن ولت وجهها بعيدا عن عقيدة الإسلام وشرائعه وأحكامه مستبدلة مناهج البشر وشرائعهم وأحكامهم حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف أو أنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه عليها بني آدم كورن كلا قال الآن سكدر إله الشرع يسي أحكام تيسي waxay u haystaan in ilaahay laga qaato ahkaamta waxay u qaateen inuu yahay qaadashadiisa in la qaato shay lagu dib dhacayo takhalluf shay dib dhac bikeenaya طيب inuu dhaxal taariikhiya xilligii la doorana la isaga tagi karayo bal ayba xaq tahay in la isaga tago dadkii baa sida rumaysan beelay bashariyadii aadamihii kulligii wuxuu rumaysan yahay أحكامته إلهي هدي لقاته إن لدب دعيو أو لقى هري آدمها لقى دب دعيو لقى هري طيب مساسا رميزنا ورقال بار رميزة ورقا مسلم مر رميزنا أحكامته إلهي هدي لدبقه أو إلهي أحكامته لقى قاته ولقد دب دعيا مسلم مر رميزنا قال بار رميزنا ولي عن إدلين وامد الله هذا إلهي أحكامتي سوى الرقم قليو وأرين تاريخية ويحقتها إن لقتها إن لقتها واجب وحقه ما مسلم باقبة ما هي مركب وحوي تقريبا ودد واقع كم مقرأ أفرتن كسنة إليهن شيء يعني إليهن أفرتن سنة إنه عالم كأنه فيرينين أو أنه محوها هاي أن مراقبينين واحد مدة أفرتن كبا كم مقرأين مش وحكم ده أنت هذاك كجبحه قضب كإسجاء أنو إمادة جوهر حقيقة بيانك وحنبارسين وح أقول درن أقول خطر سنة بيانك وحنبارسين وحويان إن أي رميسين إن أدون كوحمان تجوجاي أي قالوا وضيهين ضدك تكذا كوا مساجد كتيرة كوا شهادنية كوا كله قال ده أصلي كأ وح مسلم إنه صنقول كتشوجين أيها مركز الله جرب الرمزين ومسألة دي عن صور شيء وصوشي عن حالي صور شرحين إني قبان والتكفير يهين بيان كود اللفتي سيكوت الله أينو دور قضب سوق قاضن وحكم إذا مثل هذا الذي كويد بيانك الله بعد ولي وحيد واقع البشرية اليوم ومن خلال هذا الفهم الواضح لمعنى الشهادة الذي غاب عن الناس نرى أن البشرية بجملتها في حاجة إلى أن يعرض عليها الإسلام من جديد
حتى في هذه الرقعة التي يطلق عليها العالم الإسلامي، وحتى هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين. وفي رصد يعني واقع واحد شراء آدمها ما أنت تشوقها مركن فهم كاس وفهم كود شهادة معناها فهم كا مدلول كذا وضدك أنتي سبضن كم مقن ضدك كم مقن ما أنتي سبضن ما كاس وضدك كم مقن كامر كان فيرين وحان أرجنا أن اعتقاد سنة هيوه آدمها ضدوب كيس إنه ما أنت أبا هي إن إسلام كلو بندقه عصب لوجو بندقه إسلام كإن عصب لوجو بندقه حتى دولالك لوجو شيء إن عالم الإسلامي يهين معها حتى عالم الإسلامي معها وما قورا إنه يلاهدو عالم الإسلامي ما قورا لكن وحليه حتى دولالك لوجو مجعابو عالم الإسلامي لوجو مجعابو السجو وما قورا إنه لوجو مجعابو صوت معيته يعني إنه قالين بالروميسين طيب وحيد وحتى كوا نفتوضا روميسان نفتوضا كسو قاضي حتى إني مسلمين كسو قاضي إسوها يستيني مسلمين حتى كوا إسوها يستيني مسلمين وحي أباهيهين إن إسلام لماذا الله بندقه سعصب لوغو بندقه لأن الدين ما يستان معنى واسدة مع ماشا كم مقدمر بشريادو إني قاليهين عالم كان عالم الإسلامي اللي يلاهدنا إنه عالم الكفر إنه بلادنا إنه تهي بلاد الكفر إنه ضد كان إسلام لماذا الشيغان ينفتض واحد يستيني مسلميهين إنه يسان مسلمين هنا وقاليهين طيب مركا لواك هذا الكا بالله ماذا وحولي الواقع الذي يعيشه البشرية اليوم هو واقع محاد لدين الله واقع عالم بشرية ما أنت كن نوشه ومد قرب مرسن إله الدين كيس منذ أن ولت وجهها بعيدا عن عقيدة الإسلام وشرائعه وأحكامه إلى لقصوا بالله بمركي وجهي ذا كدودي وجهي ذا كل حسي ميل كفق أيول حسي عقيدة الإسلام كميل كفق هي شرائع دي أحكام تيسا مستبدلة أيضا كبدلتي مناهج البشر وشرائعهم وأحكامهم يعني مناهجتي هي شرعية دي أحكامتي بني آدم كدتشي مركي كبدلتي وحويل حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف وأنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه وقتي هذا آخرين مركب محمد كم مقدة واقع بشرية يدون لك الربين مانتا إلهي دريقيسي يدين كيسي ويقرب مرسنت بيان كسد قضوا إسلام حوها بيان كوحكو صاروا اللباد هذا الكلام كوسو أورور وحيل إن القائمين بالحكم في كل بلاد العالم كوا ما أنت حكمك هيا تحلك هيا عالمك والدمدي صورا بما في ذلك البلاد التي تسمى بالعالم الإسلامي كدر بيلو هكريبي والدمد اللغو مقعابو عالم الإسلامي كدر بيلو هكريبي لغو مقعابو طيب كوا إيجا والدمد كتلية يغتصبون سلطان الله إلهي أودي سيبي دعين ويبوبين وينصبون أنفسهم آلهة من دونه نفتوضنا وحي استاجيين إني إلهيين ألك السكو بل ويتجاوزون ذلك إلى محاربة واستئصال كل من يدعو إلى إخراج الناس من العبودية وردهم إلى العبودية لله وحده عيد كستو خلق اسكود إذا إني دتك كسرت أدونسجي أدونسنا يعبديان إيجا عيد كستو اسكود إذا إني كسرت خلقه إلهي عبادتي سيصارتنا ويلد قال لما يانا وعربت ريان وحيد مرك هذا كان أفير صدا والشعوب تتابع ذلك راضية كوا إلهي حكمك سدعي مدحدا شعوب تأي مجتمعات كنا أرنكاس يكون رعسنتها يدور رالي كؤه وتصفق له بحماس بالغ وإن أصعب بنيسا شعوبتي يدور أسي أن حد لهين أحماسيسا مركا شعوبتي نوحي كو قالوا ذي إن الرالي كويهين إلهي حكم كيسي الله دعي مدح دينا وحي كو قالوا بين إلهي حكم كيسي بيدعينو بوبينو إلهي إسكردقين شعوبتي الرالي بيقان نقطي وين أصعب بس لابدي بإسلاك قالوا بمركا طيب
هذا الكسدحادي وحويان أو يسجن كو إيمان يمشى صو كبسيعد وحيدي لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله وارتدت شعوب العالم كلها إلى الجاهلية التي جاء الإسلام ليخرجها منها وحيدي عالم كأردن شعوبتيس مجتمعات كأدون ككون أردن دينتي إسلام كواكن نقدين وحي النقدين قال لمدي جاهلية دي دينتي إسلام كهذا كور أي كسرتي بيديب أقول نقدين شعوب عالم كأردن بدون استثناء ويكن نقدين إسلام كي جاهلية دي قال لمدي دينته هري وقصو صارت بيديب أقول لابتين مركز وحلي ولم يبقى من الإسلام اليوم في واقع الحياة إلا اسم ولا من القرآن الرسم هذا الكيورين صومرنا وقاليسين عد صوما مركلت هذا الكناكو قرن هذه الشهادة التي غاب عن الناس معناها وإن ظل فريق منهم يرددها دون أن يدرك حقيقتها ودون أن يعي معناها وهو يرددها فأصبح واقع الناس يناقض حقيقة الشهادة ومدلولها ومقتضاها شهادتين كهاللي ضدك وكم قنتها معنى هذه ضدك وكم قي حتى قار ضدك كم ذبا هعل عليين وعربك هكو عليين ما أنت هذا دونتن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كوهيا لكن وإذن كم قنت يقول معنيه فاهمين حتى هبع العليين وعربك هكو عليين ضدك واقع عودي نلشود ما أنت وحي النقطي mid si toos u burinayso uga hor imaanaysa shahaadada xaqiiqada shahaadada iyo macnaheeda iyo waxay keenayso kulli waxa soo wuxuu ku tusaya marka hadalladaasi waxay ku cad yihiin inay jamaacadu tahay jamaacad takfiir ah oo warkoodu cad yahay oo rumaysan waxaan iyaga ahayn inay gaala yihiin bilaad muslimiintuna inaynan bilaad islaam ahayn ay bilaadul kufri tahay aduu isaga magacaw hadar mujtamacaadka ku noolna inay diinta ka ridowdo ka baxday sababtuna ay tahay ahkaamta wadciga ah ay raali ku noqotay waxa taasi cadeynay markaad u fiirsataan bayaanka markuu xoogaa wadaba wadaadku dadku la hadlaya markaas wuxuu leeyahay kalimaadku isticmaalayo yaa ayuha الناس يا أيها العالم البشرية وردضوا ورعالموا بشرية دي آدموا ما مقليس مرنا أسوق رهية يا أيها المسلمون يا أهل الإيمان أيها الإخوة في الله صوت معيتك صوت إذا ما بروا إسلام صوما أيها المسلمون يا أيها الإخوة في الله يا أيها أهل الإيمان وحرنا هنين رميزانين ذاتك المسلمين صوما مركز خطابك وكترجم يا معتقد كهذا عن شرحني أو إننا الرميزانين ذاتك المسلمين صوما وحاسب مفارقة عجيبة مركز دي ستان ترجمة الصومالي وذاتك آخرنا أسوي حليه هاي ولا ليال xogaa markuu wadaba walaalayaa markaan waxay sidii uu ka dhacsan haduuba khitaabkii asalka bayaankii asalka yaa ayuha الناس yaa ayuha العالم ku qoran kan Soomaaliga walaalayaal xagee uu ka keenay marka risaaladii buu ka dhacsan yahay qaabkay wax u socdeen ayuu ka dhacsan yaa walaalayaal meesha kuma jirtee ورددوا لأنه ولا ليال بمعنى إنه إناد مسلم تايب وكو اعتقاد معنى هنا ميشكو ميا طيب أرنتاسي مركا وحاكم وقتا هذا كان صومرني حكامة مسلمين تقول لك قاليسيو بدون تفصيل وأنا أرين أنصح سنين تفصيل بمسألة كتيرة مجتمعات كمسلم كول الله قاليسيو ولو قاليسيو رالي وحيكويهين أحكام تاس أن إلهي تيسا وافق سنين مذهب كاسينا ومذهب كي خوارجتي هوري جماعة التكفير والهجرة في فكر كوديوان مسألة كلا استلتاك أبضاني وحيته شعوبة مسلم كو إن الرالي كوتا هاي وحيالها السعودية إن إلهي دين تيسي وحانا هين لغو حكومي شرعي سي وحانا هين
inay raalli ku tahay oo ay sabab uga dhigeen inay ku gaalaysiiyaan arrintaasina waa arrin u baahan daliil u baahan shucuubtu raalli kuma aha imisa ayaa arrinkaa isaga ah ka dagaalamaysa imisaa diidan imisaa dalbaysa in shareecada ilaahay lagu xukumo imisaa xabsiyada ugu jirta imisaa meel walba la taagan imisaa dalbaysa raalli bay ka yihiin xageed ka keenta maadaa qalbigooda jeexay ya quluwigii khawaarijta waxaa isweydiin leh oo iyadana waqfo kale oo arrintaa isweydiin karnaa ayaga iyo ummaddaasi la dhawaaqaysa maxay ku kala duwan yihiin horay baanu usoo tilmaannay bal in badan kaga fiican masaa-isha iyo taqriirintooda iyo ummadda in loogu yeedho ayib arrinta kalena waynu soo marnay oo ah haddii ay mas'aladu tahay axkaamtii ilaahay mid aan ahayn baa idinku dul socota oo laydinku xukumaya jawaabtu waxa weeye idinkaba waa laydinku xukumaya idinkaba iyadii baa idinku dul socotee maxaa annagana gaala idinka naga dhigay idinkana muslimiin idinka dhigay su'aal isweydiin law ayib inta haddaan kaga baxno mas'alada muctaqadka rasmiga ah ee asaadicuuna bilxaqi inuu yahay muctaqadkii takfiirka muctaqadkii khawaarijta inuu yahay intaa markaynu kaga baxno waxaynu u gudbaynaa tawxiidkan ay dadka ku gaalaysiiyeen ee ay leeyihiin ummadaba waa ka maqan yahay macnihiina lama fahmin iyagu ma fahansan yihiin waa ya xaqiiqadu waxay tahay iyagaan tawxiidka fahansanayn ayagaan shahaadada macnaa laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo madluulkeeda saxda ma ay fahansanaan macno kooban oo macaaniday keenaysa ka mida ayay ku gaabsadeen macaanidii ka muhiimsanayd oo shahaadateynku keenayeenna way ka tageen wadaliilu calaa dalika waxa waay mafaahiimta maqluudkaa bay ka mid tahay macnaha tawxiidka waxay ku fasireen markaad bayaanka si fiican u akhrido waxay ku fasireen xukumka iyo sharciga lagu dhaqmayo iyo sharci dejinta iyo nidaamka nolosha kala wada ilaahay keliya iska leh waxna wax loo yaqaan tawxiidul xukmiga loo yaqaan ama xaakimiyay qaarkood dhahaan qaybtaasay tawxiidkii keliya ka dhigeen macaanidiisana halkaas ku fasireen marmarka qaarkood bay calaamadad si rafaad ah bay waxoogaa shacaa'irta tacabudiga iyo waxba yara gelinayaan laakiin macnaha ay tawxiidka iyo shahaadada u yaqaanaan ee ay bayaankooda ku fasirayaan waa xaakimiyada sharci dejinta ilaahay baa iska leh nidaamka addoommada maamulaya ilaahay keliya iska leh isaga in looga dambeeyo weeye intaa weeye tawxiidka ay fahansan yihiin ama ay ummadda ku gaalaysiinayaan inuu sidaa yahay waxaa ku tusaya bayaanka waxaa ku soo arooray hadalka shahaadateynka markuu fasiraya wuxuu yidhi ama shahaadada wuxuu isweydiiyey maa hiya xaqiiqatu shahaadati wa mafhuumu tawxiid tawxiidka fahamkiisa saxda iyo shahaadada xaqiiqadeedu maxay tahay buu isweydiiyey markaasuu wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah tacni laa ilaaha ila allah inaad qirto waxay ka dhigan tahay oy la macno tahay an laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye inta hadday u dayn lahaayeen macno ballaadhan bay qaadan lahayd laakiin maxay dhaheen walaa sulطaana walaa xukma walaa tashriica ila lilahi subxaanah markiiba waxay aadeen mar walbana waa saas markastoo ay fasirayaan dhanka waxay aadayaan uun xukumka iyo tashriicay aadayaan ya xaggii garsoorka iyo axkaamtii lagu dhaqmeeyey iyo dowladdii iyo siyaasaddii dhankaa unbay aadayaan oo laa ilaaha ila allahu macnaheedu ma intaas ah laa ilaaha ila allah iyo shahaadada iyo tawxiidku ma intaas ah mise macno kaluu leeyahay ayib tafsiirkaasi tafsiir saxsan maaha marmarka qaarkood baad arkaysaa isagoo xaakimiyada iyo sultaanka iyo ku daraya iyo cibaadada iyo nusuga marmarka qaarkood shacaa'iru dacwadiya ku yara daraya mar waay calaamadad laakiin bayaanka masaladu xoogga saaraya dadkana ku gaalaysiinayaan kelimatu tawxiidna ay ku fasirayaan iyo shahaadada waa xaakimiyada waa xaakimiyada ayib masalada xaakimiyada markaynu u noqono tawxiidka iyo shahaadada macnaheeda rasmiga markaan u noqono intaynaan fasirin meeshuu ka khaldan yahayna aynaan tilmaamin
waxaa laga maarmaanaa inaynu sheegno khilaaf kuma jiro muwaxidiinta agtooda dadka muslimiinta ahlu tawxiidka iskuma khilaafsana mas'alada ah inuu ilaahay keligii xaq u leeyahay jidaynta iyo tashriica xaq allo khaalisa cidda sharci dejisa wa xalaalaysa wa xaraamaysa andimada dejisa xaqa u leh ilaahay keligii khasaa'isu rabbi bay kamid ilaahay baa khaas u leh tabaaraka wa tacaala qur'aankana masalada tilmaamay sunnada nabiguna waa sheegtay sallallahu alayhi wasallam wala yushriku fi hukmihi ahada qiraa'ada kale waxay ahayd wala tushrik fi hukmihi ahada ilaahay xukumkiisa cidna hala wadaajin ala lahu al-khalqu wal amru abuurka isaga leh amarkana isaga leh amarka kawniga iyo amarka tashriiciga labadaba isaga iskale inil hukmu illa lillah in xukumka ilaahay keligii leeyahay tashriicana keligii leeyahay mas'alada ku jira ma mas'aladaasi inxiraafka galana shirki buu galay am lahum shurakaa'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah mas'aladaasi waa mas'ala mafruuqa oo muxuu ahaay aan hadal ku jirin inay xaq ilaahay oo khaalis tahay in adoomada nidaamka maamulaya sharciga maamulaya dastuurka maamulaya qawaaniinta maamulaya andimada kala hagaysa inay ilaahay khaas u leeyahay arintaasi hadal kuma jiro طيب لكن توحيدك كليجد معه أستاذ درادي بقى وحيري العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله أضواء البيان جلد كتضبات صفحة بقول لحدين لا وحليه الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهم البتة إلهي حكم كيسي يشرع كيسي يتشريعي إن اللو ذا سعيد كله إيه إن العبادة سعيد كله لو ذا سو واسكم معناه فرقنا ما لبوليه فالذي يتبع نظاما غير نظام الله والتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله سومالي يعني وحوي إن إلهي أحكام تلصيه شرعي سنة لقدم به وامد إن لعابده ويسق الله خضوعه لوضب إلهي بخاص له مسألة ذا سمركة ومسألة ساسة هبا كالضودين علماء قاركودي حكمكم وحو قليا ما التوحيد كألوهية قليا وقيبت عبادة قليا مثل الربوبية قليا ضد سيجرت حاكمك حكومة يا إلهي الشرعي سوحان أهينا حكم كيس تفصيل باكوتشير مرنا عاصب النقضاء مرنا واكو قالوا به مرنا عاصب كل نقضاء مرنا واكو قالوا به ميتك الشرعي إلهي الشرعي أهنا وتحاكمة ينا تفصيل باكوتشير مرنا واكو قالوا به مرنا قال ما قارسيسنا سألوا مرة هذه السيدة استهاي ما أها إن كدود إنه مسألة حاكمية لكن وحن ديدنا هاي محكمة مسألة حاكمية إن غلوي حد جذب لغصمي أو ماشي هذه ميلانا هين لجيو سيدا خوارج تبع مسألة الإيمان أي حد جذب لغصمي قدريتنا مسألة القدر وأصوش التوحيد ككم ده أي حد جذب كلغصمي حاكمية أنت تكلي جد قبضته إن الحد يقدر تعفس أو الدين تيرنا يدا كركت وهذا يدو مقنته إسلام كي ومقيه ويدا هدي لقيت محوها هاي أمل لواء إسلام كي لواء وعدي كتكت الدين تكوض بحضي غلوي النوع عاسي مسحسنا هذا مركز سيدا كوفا سيرين توحيد كي الشهادة دي سيدا كوفا سيرين معناها سي معنى الصحابة سيدا قرآن كتصي سنة النبي قلنا كتصي صلى الله عليه وسلم عبادته حق معناها ويكجد وينتهي حكمك دلالة دون ويكحل دارت طيب مفهوم قاصر ومركز وحا وقفي عن قيحيد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أوفي رصدا مركو عبادة قيحة يمحوي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة عبادة هدي الليلة عبادة إلهي إن أمري اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صوما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة سوى مقع كل من إياه وحكستو إلهي تعليه الرالي نكيه أما هذا اللغو الله هالنقضه أما عمل السمائية وحبنه السمائيان هالنقضه ميد موقضة يميد قرصون أما قلبي قوحي اعتقادية هالنقضه شيء كستو إلهي تعليه الرالي نكيه وعباده
markaasuu miisaaliye waxa soo galay buuri salaadii waa cibaado sakadii waa cibaado soonkii waa cibaado xajkii waa cibaado runtu waa cibaado inaad run sheegto amaanada inaad gudato waa cibaado labada waalid inaad baari u noqoto waa cibaado raximkaaga iyo qaraabadaada inaad xiriiriso waa cibaado ballanta inaad ilaaliso waa cibaado inaad dadka khayrka farto xumaantana ka reebto waa cibaado jidka ilaahay oo lala jihaado lagu jihaado oo kuwa mudan lala jihaado munaafiqiinta iyo gaalada waa muxuu ahay waa cibaado dariska oo ihsaan loo sameeyo waa cibaado agoonka iyo miskiinka iyo ibn sabiilka iyo adoomada la leeyahay iyo hatta xoolaha iyo waxaan hadlina noolaha kale oo ihsaan loo sameeyo waa cibaado Soomaaliyeed wuxuu yiri wad-du'a wad-dhikr wal-qira'atu iyo ilaahay inaad barido alla barigu soo cibaado ma inaad ilaahay xusto waa cibaado inaad quraanka akhrido waa cibaado iyo wixii lamida Soomaa cibaadadu marka waa gudaweynta cibaadadii waxa soo galaya wakadalika hubbullahi wa rasuulihi inaad ilaahay jeclaato waa cibaado rasuulkiisa inaad jeclaato waa cibaado khashiyatullah wal inaba ilayhi inaad ilaahay ka baqdo isaga u laabato waa cibaado ikhlaasu diin lahu inaad diinta u gooni yeesho inna la wanaajinin as-sabru li hukmihi inaad xukunkiisa ku sabirto waa cibaado nicmadiisa inaad ka shukrido waa cibaado inaad qadihiisa raali ku noqoto waa cibaado inaad tala saarato oo ku kalsoonaato yani waa cibaado inaad naxariistiisa rajayso waa cibaado cadaabkiisa inaad ka baqdo waa cibaado waxa soo dhan cibaado ay soo galayaan Soomaaliyeed cibaadadu marka macnaha guud bay leedahay ayaguna maxay ka dhigeen war maxay ka dhigeen hal qayb bay ka dhigeen halka qayb bay ummadii ku xukumeen ayaguna tawxiidkiiba u qaateen saas daraadeed intaasi haday maqan tahay islaamkii waa maqan yahay halkaas ka socotaa war intii kala dhan baan wada haynaaye intaasi haday maqan tahay maxaa diinta nooga saarteen oo islaamku u gaalaysiinaysa fahamka marka ay tawxiidkiiyo shahaadateynka ka haystaan iyo cibaadada waa faham maqluut ah waa faham khaldan waa sidaas daraadeed waliba waxa mudan markii cibaadada noocyaheeda ka disan markay isu tagaan kee ugu muhiimsan marka la yiraahdo ducada ugu muhiimsan bariyada sooma saas daraadeed baa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam ad-du'a huwa al-ibada bariyo cibaado oo dhan markay ururto bariyada isugu iimaanaysa hadaad cid aan awood lahayn aad barido qabri barido wadaad dhintay barido makhluuq aan wuxuu hanan karin barido jinka barido soo gaalnimo ma soo tawxiidkii meel maad kaga dhacay ugu ma jira qorshaha iyaga waxaas طيب كذلك مفهومك خلدان قاصرك oo tawxiidkii iyo macnihii asalkii cibaadada in inta uu lagu fasiro inihii ka muhiimsanaana laga leexiyo waa fahamka iltizaameen oo tawxiidkii iyo diinta ka fahmeen ummadana ay ku xukumeen waa saas daraadeed waxaan leenahay arintaasi waa qaldan iyaga laftooda fahamkii tawxiidka iyo shahaadateynku ka khaldan yahay طيب bal waxa ajiib ah dadka ugu yeedhaya ummadda ilaahay keligii barya ilaahay keligii tala saarta qubuurtana caabudina bid'a ka taga alla ciidana ha baryina ha tala saaranina ha kaalmaysanina qaybtaaba muhiimka ha u gowricina keligii ciidan ahayn ciidan isaga ha u sujuudina qaybtaasi dadka faraya xarakaadka jamaacaadka culimada ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay yihiin dad ku mashquulsan waxyaalo juz'i ah waxyaalo yar yar bay ku mashquulsan yihiin tawxiidkiina waa ka maqan yahay bay توحيدك شيء محوية وانت يجوا فانسانين توحيدك فاهمين طيب تامر كأنه فهمه كذب عبادة فهم كذي وحكم إذا ما لها كخلدمين خلط ككلاء وإسلام فهم كي عبادة هي التوحيد كي الشهادة خلط كلا بعد كجلا وحوي هذا الكوض حكم إذا ها مركي وكاني آيات القرآن كي اعبد الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي وحول والعبادة لها معنى واحد عبادته هل معنى لا ضعيف هل معنى بس محوية وهو الخضوع المطلق والاستسلام الكامل لسلطان الرب الجليل
inaad u khuduucdo u dulowdo isu dulayso adigoon waxba ka soo reebin si dhammaystirnana ugu hoggaansanto alla sultaankiisa iyo awooddiisa iyo sharcigiisa ayib kaasuu ku fasiray markaasaa wuxuu sii wa aayatu dalika alla yaltafitu fi sha'ni xayaatihim kullihi amran walaa nahyan ila min allahi alwaaxid alaxad mas'aladii iyagu markii hore baan soo sharxno soo sheegnay bay marka la aaday macnaha maxaa ka khaldan cibaadadu waa khuduuc mutlaq ah khuduuca waxaa la yidhaahdaa inaad isu dulayso ayaa khuduuca la yidhaahdaa cibaado macnay leedahay halka macnay leedahayna waa khuduuc buu yidhi ma saxsana tafsiirkaasi isaguna waa qalad lianna cibaadadu laba macnoo isu saaran waaye waa khuduuc wa tadallul maca almaxabba jacayl alla aad jeceshahay iyo isdullayn aad isu dullaynayso labadaasoo isa saaran baa cibaado ah ee khuduuc keliya cibaado maaha saas daraaddeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi waalcibaadatu aslun macnaha adullu aydan yuqaalu طariiqun mucabad ida kana mudallalan qad wati'atu alaqdaam lakina alcibaadata alma'muura biha لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له لما معنى وضعتا إلى ماشا أقدم بيس إنا دي الله جعلاته ماشا أقدم بيس إنا يسد ليس هذين الله وضع معنى كل من عبادة وما markaasuu sii miitaaliyo wuxuu yidhi ruuxii maalan insaan u khuduuca isagoo necab waad necab tahay ruuxna laakiin waxoogaa waa shaxaad baad ka rabtaa waad isu yara dullaysay waad u khuduucday si uu waxoogaa kuu siiyo ama waad u yara khuduucday si aad dhibkiisa uga nabad gasho qalbigana waad ka necab tahay miyaad caabudday maadan caabudin mid baa jeclaaday makhluuq laakiin umuusan khuduucin maalan carruurtaadii baad jeclaatay xaaskaagii baad jeclaatay umaanse khuduucin ma cibaada maya goormay cibaado noqon markay kulansato alkhuduuc waalmaxabba markaasay cibaado noqonaysaa oy noqonaysaa xaqi rabbi tabaaraka wa tacaala meel kaluu ku leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah waalcibaadatu tajmacu kamaala almaxabati wa kamaala aldulli faalcaabidu muxibun khaadic labadaa waa inay cibaadada isugu yimaadaan ayaguna maxay ku fasireen cibaadada alkhuduucu almutlaq wa ayna almaxaba qaybtii labaad aawa uguma jirto qadka may fahansana marka haddaan idhaahno tawxiidkii iyo cibaadadii ma aynan fahmin ma qaldanna hadday marna xaakimiye iyo xugum keliya ku fasiraan marna ay khuduuc keliya cibaadada ku fasiraan adeer waa tacriif iyo fasir qaasir ah waa macnihii qayb ka mida way intii badnaana waa maqan ayib taana waa mar labaad sidaas daraaddeed baa waxaan leenahay tawxiidkan iyo shahaadadan aad madluulkeeda idinku fahanteen ummaddana aad ku gaalaysiinaysaan idinkaa u baahan in laydin baro ayagaa u baahan in la baro ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu muxuu yahay tawxiidku macnihiisu muxuu yahay ayagaa u baahan min jadiid inay bartaan maaha inay dadku gaalaysiiyaan faham qaldanoo iyagu qaateen oo juz'i ah ama qaasir ah inay dadku gaalaysiiyaan isla taa waxaa ka dhashay fahamka qaasirka ee tawxiidkii cibaadada ay ka fahmeen iyo shahaadada waxaa ka dhashay daaquudkiina inay macno qaasira u sameeyaan ilaahay sooma dhihin walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu daaquut ilaahay keligii caabuda daaquudkana ka fogaada ayib daaquudkii bay haddana tafsiirkii qaasirka ahayn soo marnay bay mariyeen daaquud maxaa la yidhaha u fiirsado tacriifkoodu waxay dhaheen huwa kullu man tabicahu nnaasu wa ataacuuhu bigayri idin min allah cid kasta oo la raaco
وددك أطيعان يسقون الله أؤذن وطاغوت هاي الطاغوت هو الذي ينحي شرع الله ويشرع للناس طاغوت هو ميدك إله شرعي سينتو ماشا كدركي وماشا كساره أسقوا ددك أتشدية شرعي قوانين أتشدية هاي الطاغوت هو الذي يحل للناس ما حرم الله ويحرم على الناس ما أحل الله وإسلا قضب كي هرم وتكرار سمارت وحول الطاغوت هو الذي ينازع الله في سلطانه وذاتك إلهي أودي سكوها يستا فيضع الدساتير ويقرر القيم ويضع الموازين والعادات والتقاليد والأخلاق وأنك ذاتك رقنك أودتشيه إسلام يشي واحد يا marka daaqud maxay ku fasireen laba qodob ninka dadka shuruuc iyo qawaaniin tii ilaahay aan ahayn u dajiya ka ilaahayna meesha ka saara dadka wax u xalaaleeya ka xarima ki ilaahay aan ahayn waa daaqud dadku inay iska raacsan yihiin iyadana ilaahay uusan haysan waa daaqud tayib su'aal baa isweydiin midka ay caabudayaan sanamka ay sujuudayaan qabriga ay caabudayaan geedka ay caabudayaan طاغوت maaha jinka ay wax u gowracayaan طاغوت maaha macna maxaad fahamtay طاغوتkii mar labaad waxay la aadeen tafsiirkiisa meeshii tawxiidka ay ku fasireen ilaan طاغوتku wuxuu ka soo horjeedaa allaha xaq leh caabuda marka la yiri midka cibaadadiisa laga tagayo dhan baa طاغوت maxaa tahay marka ayagu markay la aadeen xalaaleyn iyo xaaraameyn kaliya اتباع هي طاعة كلية لا آذين معناها سمر لبعض ومعنى قاصرة مر صدحات بانديلا معنى الصحمة سيدا صحدا وحويان أيضا تعريف كودو إسكية هي تعريف صحسن وصناهين أيها دنا الطاغوت ك سيدا صحدا وحوي واسدا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيها ليه والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة مركز أوحد والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي فالمعبود من الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت متك ألك السكة ولا عابدي حدوسا كهنين عبادة الله ولها إساق الله سينا حدوسا كهنين وطاغوت صوما midka loo sujuudayo midka la baryayo midka kaalmada la weydiisanayo midka gargaarka la weydiisanayo midka la tala saaranayo midka loo gowracayo ee raaliga ku ah waa طاغوت hatta yuusan sharci jidaynin ya waa طاغوت hatta dhagax ba ha noqdo geed ba ha noqdo waa طاغوت laana dawaaqida waxa ugu weyn shaydaan ba u weyn sooma odayga dawaaqidu waa shaydaan waa ibliis wuxuu yiri marka ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت sidaas daraadeed uu nabigu asnaamtii geedihi iyo dhagaxyaanta caabuday nabigu wuxuu ku magacaabay طواغيت طيب سؤال سويديه marka nabigu wuxuu yiri wayattabi'u man ya'budu at-tawaghita tawaghita marka la tago aakhiro ninkii daaqud caabudi jiray daaqudku caabudi jiru raaci doona markuu ilaahay amar bixi su'aal sويديه marka sanamiyadu ma waxbay xalaaleyn jireen ya ma sharci bay dejin jireen طيب ما إذن انتي أمر ضدك السيام با أمر كودا لا أديع جري ما حي ضواقيت كن نقدين يا ولا عابد جري أيوة مركز عبادة قيب تاسي عدة للسيو ضاقود كما يندقي وسيو ذوحر والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى والدين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت نينك إلهي معصيدي سلقوا أطيعه يا إلهي كتابك سخلاف أمرك إلهي ميت خلاف سلقوا أطيعه حاكمك حكم إلهي كأنا هين ذاتك أمر يلقوا أطيعه والطواغيت طيب ابن القيم بسوق أبيه يسوق حولي والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع عد كستو أضامده حد كيسي أي قدبيان وتلابيان أو مثل عابدية أما مثل الرعسية هي أما مثل أطيعية وطاغوت وسي تفسيريه
sidaas daraaddeed daaquudku tafsiirka ay bixiyeen ee daaquudka ku fasireen isaguna waa tafsiir qaasir ah waa tafsiir juz'i oo qayb dawaaqidii kamid ay ku fasireen laakiin qaybo kale oo fara badan bay meesha ka saareen mar labaad ba waxaan leenahay tawxiidkiina mayna sixin tafsiirkiisa cibaadadiina macnihiisa mayna sixin daaquudka tafsiirkiisa iyo macnihiisa mayna sixin intaasina waxay tilmaamaysaa in ay aqoon darro fara badan hayso marka macnaha saxda ah ee daaquudku waa ka meesha iyagu la aadeen waa meeshay kaga dhagan tahay masaladu Soomaalida waxay yiraahdaan hebel meel maag buu leeyahay nimankaas meel maag bay yeeshay hal meel bay kaga dhigtay halka meel ay kaga dhigtayna waa qodobka aan tilmaanayo xukunka iyo qawaaniinta iyo sharciga qaybihiisa siyaasadda iyo dawladda iyo garsoorka intaas kaga dhigtay diintii waa in muhiim ah soo tilmaanay laakiin diinta islaamku inta kaliya ma aha ina kaleeto oo kuwa ka sii muhiimsan baa ku jira daaquudka tafsiirkeeda markay bixiyeenna iyadana tafsiir qaldan bay saareen oo qaasir ah oo aan dhamaystirnayn طيب inta waxa inooga soo baxay in qaadiga dadka xukumaya ee intaasoo malaayiinta muslimiinta bal milyaar iyo ka badan muslimiin oo maanta dhul korkiisa ku nool ninka xukumaya ee qaadiga ee garsooraha ee ahkaamta saaraya waxa uu ku xukumayo ma yaqaan soo dhiiranana caadi ahayn ma milyaar iyo ka badan muslim oo koonka maanta ku nool oo sujuudaya oo cibaadaysanaya oo masaajida camiraya oo quraanka akhrinaya oo tawxiidsanaya oo dadka tawxiidka alla ugu yeedhaya oo u xidhan oo lagu dilayo oo u rafaadsan marka diinta ka saarto aqoontaada tawxiidka iyo cilmigii aad kaga saaraysan ay halka gaarsiisan tahay soo geesi nacasamati waa jiri waa nin indha adayg uu dilayo waa indha adayg uu dilayo waa طيب masaa'ishan oo kaleeto waxay tilmaamayaan cabsidu markay yaraato ruuxa tadayunku ku yaryahay markii diin ruuxa tadayunku ku yaryahay ayuu masaa'isha noocan oo kala ajiiraa ruuxa la ka cabsiga leh ilaahay ka baqay diintiisu culus tahay masaa'ishan gaalaysiinta khaasatan ummada inta la eg inuu diinta ka saarayo mas'ala la fudud ma ilaahay agtiisana kuma fududa tabaaraka wa taala طيب waxa ka muuqda bayaanka waxyaalaha la yaab kale kamid taskiyatu nafsi waxa leeyahay ayaga fahamkooda qaldan ee qaasirka iyo waliba ijtihaadkooda tanziilka laba arimood baa isa saaran nusuustiina waxay fahmeen faham qaasir ah inta mayna ku gaabsanine tanziil bay sameeyeen oo ummadii bay ku dabaqeen oo ay ku tanziiliyeen oo masalada tahqiiqul manaadka la yiraahdo masalada tanziilka bihaddi daatiha ba ijtihaadiyata fahamkoodii oo qaldan ummadii ay ku xukumeen oo ku tatbiiqiyeen oo ijtihaad oo qaldan ayagoo inta isla wata ayay haddana meeshay isla joogaan iyo say isu amaanayaan iyo say isu taskiinayaan Allah yaabaysa waa dhaqankii khawaarijta lagu yaqaan iyo ururadan takfiirka ayaga fahamkooda iyo siday diinta u haystaan kaliya jira ayagoo ma nasaxsan ayagoo qaldan macdalik u fiirsada hadallada macnaha ku tusaya waxa kamid wuxuu leeyahay wa hatta yara an-nasu fiina salamata as-sadri wa nasa'ata al-haqqi wa khulus an-niyyati ma'a al-israr 'ala suluki at-tariq ila Allah duna da'fin aw hawan aw taraddud dadku inay naga arkaan qasadkanagu inuu fayow yahay xaq cadna aan ku socono niyadanaduna khaalis tahay oo idinka sheegtay ayaa idin qiraw sooma wuxuu leeyahay laqad cishna wasatakum dhaxdiinaanu ku noolaanay zamanan muddaanu idin dhex joognay hadaanu nahay jamaacadii as-saadiquuna bil haqq muddaanu shucuubtiya idin dhex joognay ayuha an-nas منذ أن أقمنا هذه الجماعة لقبل الله مالك كان جماعة أساسني
إلى ما أنت مدير بان إذن دح جوجني هاي فاسألوا عنا كل ما يعرفنا روح كستونا يقانا ويدي حالك نك ويا إذن يقانا إذنكم بس يقانا سؤال بقى ومدي هذا ما يكون براروكتي يا لو يدين هرت هذا ما بلا فهمي بقى ضد يربع فانسنا ضد كنا يقانا ويدي بده طيب هذا ويديننا فلن تجدوا إلا كل خير وصدق ومحبة مرقد حالك نجا ورستان وحاولني صبيح بيدي خير ودن يا نوجا سوكين بيه إن خير ودن هينو رون ودن إني أنا جنوجو إديش محبة يكالقعين إنه نوجو إدي هيدين صباحيس فهذا ما تعلمناه من إسلامنا أقول تاسنا ووحنا إسلام لماذا نتكبرنا وهذا ما نقتدي به من أخلاق نبينا نبي قلنا أخلاق دي سيبانا كقضينا طيب مراها سؤال الوحيد هذا نينس أماني هي والرئيس نكت مراها إن لو يلاه في عنا الله إن لو قرها في عنا لكن هذا قرهاته وأجزاء سواء ما أنتو خير ودن يا محبية بنكون حشرة ولا قف يعني حتى هدات تسكية ده وحكم إذا يقاب كي السلق ميهين يهير كي إسلت شوجان آياته ضدك أيجا خلاف سن كسهر كذا ورك كودي مذهب كودي منهج كودا أنقر سنة جاهلية ويقانا مكذبين ويقانا الرسول شكوي بينيي أو كلوه صوما لأن الشعار كودا ما يكون بالله بين شعار كودا ما قبل الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل كإريبان إذن لن نمد إلهي كلي عابدا عدكلوا عبادة لما شرتين اعبدوا الله ما لك رسوش سيولا تمدون طيب عدي إذن كهري مادنا كي رسوش بينيه ولا مدي ما هذيك فهم كاغ قلدن نكي حتى كهري ماد رسول بكوري من نكاس سلو ساسو وحدكو قرن آية هندقيست وحيليهن أيها الناس استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض آيات كاس طيب آيات كاسي وحير انتو سنة آخرين وحير فإن أنتم استجبتم لدعوة الله نلتم بمشيئة الله سعادة الدنيا ونعيم الآخرة وإن أبيتم فنصبر على دعوتنا حتى يفصل الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاصلين وإلهي دينتي سأجيبه ورقوك هنجي يوم وإنتان إلهي أمر كيسو إذن كوي مالين مالين لا وحي لي لهين ميلادو عرتان إذن هيلين إنت قوم كنجي يوم دا إلهي كوي سوي يلا محوها هاي الرمية وإذن دم دافي أشر وين بو إذن سين عذاب بو إذن كبد بادن عدي يلي وإذا صوماها إلهي معاجز قيلين كرتو كما فكان كرتي إلهي يا واي وحي ساوها الله ورسا يا وهلا رسوشي با ساوها هذا الشيء أيوة مركب محي سكر دقيان بوس كوديو كلا إسدقان مركب ساو وحي كودرين روحي يليتان كنجا يلي واي أو يلي دا أنو يرني روحي يلا أو باقا قاتا إلهي ليبان تيسو قاري أدونك إيا النعيمك يا وربرواقضا آخر هدا ديدان صوماها دعوة الندان نكو صبرينا إلى إلهي إنك لا حكمه وإنك لا صاروا حق إنه كلا صار بمعنى سيدي أمضاها يقوم كود اللوك لساري تشيرون لها لاقي تشري ما لها أمضا إلا هقالي الرمى دي والذي كوري ما دول يوحين واقل دي أمضا ما هماريزان هدي ليس كلا صاروا ما إن هودي إنه وحلوك لا صاروا فهم كينا قلدنا وحلوك لا صاروا ما إسعتشبين تهير كاقار سيسان ووحاقوا إناد كدك تصيد يعني فهم كي الرسول عدة كهر تمادنا عد رسول كهر تماد وكلا أدولا دقنتو خطاب كانوا عازكوا جهداي وتزكية النفس خوارج تلقوا يقانيو خوارج تي فرق تكفيرك أيا وحا كدحيا أما كو ددك الله يا هنقدين أما كو اسك محو ددك اسك دحجير هنقدين هل قضب كدحي وحا كميدا إن إسعجبيان وفهم كودي iyo manhajkoodu cajabiyo ki ilaahay oo kalena ka soo qaadaan warmay fahamkaagu iyo ka alla uu kala duwanaan kara quraankiisi qaldan nusuusti baad u fahmi kartaa tanziilkaagu iyo tatbiiqaaga qaldanaan kara waa kala duwan
أيام مايا نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه سيد المامو وحو يدي صلوات ربي وسلام عليه مركو كهل لهي خوارجته سيكون في أمة اختلاف وفرقة وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم يا أمضي خلاف إيا كلا تشبع قلي دورة وحانا إيمان دون قوم يقول إسعاد شبية إذن كان إذن عاد شبية يقول إسعاد شبية فهم كودي رقم كودي عبادة دودي أوبوغينو وإسر رياقين يقول بايس أفوفاي إذن كان السبب إذن عاد شبية وحيدين عاد شبية شيء الشضوضة عبادات كودا بركات في رصاه وكي النبي صلى الله عليه وسلم صون كودا يصون كينا مركات في رصاه كينا الحقيرس قرآن أخرس كودا كينا الحقيرس قول ذي سيدا اللي يريبها بدان تيبا نمان عبادة بدن مساجد كوتشيرا وعبادة يستوصون بدن أو مدحو قلفي إنتنا وقلف كفوش يا قعمها قلف كفوش يسيقوا تكنا هين ولو يهو رمبا وذا قلفه بيسيقوا تكنا هين وركواس عبادة يبلا هايين كون حتى مساجدي عبادات كيوحي مجران متو كذان مليه لكن عبادتي كوا ملا ومع ذلك فكر كوا فكر كي قول الله سبحانه مركز أتشبين تاسي وحلقوا يقانا فرقدا منهجكي خوارج تمري أما عدي كلا ومنهجك الصحة السنة كسوغاني فهم كيس مروى البوح الرميسية فهم كني أنا فهمي وصار أقاتي صحنا ونقون كرا خلنا ونقون كرا هذه اجتهادي هي حكم كان عندك صاريو أنا أم فهمي لكن صحنا ونقون كرا قلدنا ونقون كرا عدي إيجاه ارتمادنا هذا الدليل إيه برهانه بيبقى أنت إنه يقصح سين هذه كاري صوما لكن وحوي الرسول عنو موقف كيسي ما مثلا يوميشي سي ما تشوفن دتك إيجاسو هرتشيدنا دتك الرسول شبيني بوس كودي ما تشوفن صوما حكم كواكل الدوية وفي رسالة النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه مركو لها اللي رجع إذا ماذا هو جامية ومرضى الدجال هذا هذا يمركو النبي يقول لها اللي صلى الله عليه وسلم وحكيري طيب وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أمير نبي كصعود عيدا كيف هو قامني قالوا الله دقال الله ميه نبي وحكيري هداد دد ميل رفيس كتيرة أما ميل دقن هريرها كمرتود محوها هاي هريريس هي وانت يسوكا ديبان اي دهدان حكمك الهي نغو حكم واميركي عيدنك مسلمين توت قال اسو ديبت حكمك الهي او قبين نغا قبا نغو حكم هداي ku dhahan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha ku dajinin ilaahi xukumkiisa hadhihin ilaahi xukumkiisi baan idin saaraya laakiin waxa dhahdaa xukumkaygaan idin saaraya xukumkaaga adigu ku daji ka ilaahay ku dajin sababtu maxay tahay ma ogid xukumka ilaahay ku daji xukumkaad ku dajinayso inuu ki ilaahay yahay iyo fahamkaagiyo qaldamay inuu yahay ma kala garanayside xukumka alle hadhihina kaygide war ma fahanteen macnahaas ya waanin amiiro saxaabi oho nabi maxamed dirsadayo ciidan hogaaminaya waxa lagu leeyahay dadka markaad xukunka saarayso waxa tiraahdaa waa aniga saylata xukunkaygi weeye sidaas aynu ku heshiinay saasa la idinku xukumay laakiin ilaahay baa saa idinku xukumay ilaahay baa saa idinku xukumay oo fiirsada firaqdani fahamkana waxay waa kii rasuulka طيب fahamkani iyo qaabkani dadkan yaa gaalaysiiyay ilaahay baa gaalaysiiyay dhiyeen iyo kulay war muslimiinta yaa xukumay oo gaala inay yihiin quraanka xukumay نبي محمد بقى حكومة دتك إني قال يهين ورا فهم كذا قلتن كل حكومة حكم كان دتك عذا صاري إلى هنا ما صار نبي يقول ما صار كذا يو فهم كني وقلدمي كرا إن أصيبته إن خلدن طلبه وصورة قلوة سيداس درادد إلهي هو تيرين شرع إلهي إنها صار كذا نبي محمد بقى إنا برا صلوات ربي وسلامه أيجنا وحوضه ووحي وبقولك وبقوله طيب أنت كذب وأنجب جبيني الناي أنت كبضن بوباهي هاي إن لدول استعمل لكن لبضع حلقه إن يقدر كم تلقين واحد بدن نقاط فر بدن ولا بين أنت سلك وحرجيني إن كفاية هاي ويكفل أنت هاي لمن كأي منهج كوده
iyo dariiqooda iyo taariikhdooda iyo waxay rumaysan yihiin in la cadeeyo waxaan leenahay marka khitaamka iyo gabagabada waxaan leenahay ayaga waxaan leenahay dad faham badan fahamkii diinta wax badan oo kamida uu ka maqan yahay way ka toobad keenan leenahay fikirkan khawaarijta ee takfiirka ah waa fikir lagu rogmaday hortiin baa lagu baaba'ay ka toobad keena ilaahay u soo noqo annagana xaq waxay noogu leeyihiin inaan ilaahay u barino inuu soo hanuuniyo oo balaayadan iyo aafadan iyo manhajtan khariban inuu ilaahay ka soo hanuuniyo intaasi waa iyaga ummadda muslimka ana waxaan uga digaynaa afkaarta noocaas oo kale afkaartaas waa afkaartii nebi maxamed ka digay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa afkaartii nebi maxamed ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka xambaarsani in ay yihiin dhulka korkiisa inta ku nool kuwa ugu shar badan waa afkaartii khawaarijta ee nebi maxamed ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhulka korkiisa wax lagu laayo inay iyagu ugu shar badan yihiin inay naarta inta gelaysa eydooda yihiin haddii uu nebi maxamed soo gaari lahaa haddaan gaadho waqtigay soo bixi doonaanna sida caad loo baabi'iyey baan u baabi'in buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadkana wuxuu tilmaamay inay ugu khayr badan yihiin dadka kuwaa la dagaalamo dabcan markay xoogeystaan oo bannaanka u baxaan afkaartii nooca ahayd ee nebi maxamed saa uga digay axaadiista mutawaatirka ah afkaartii nooca ahay weeye afkaartani laydinku qarinee la leeyahay alsaadicuuna bilxaqi hoosteeda ku jirta marka ha rogmanina khaasatan da'yarta oo maanta aafada haysataay ay noqotay cid kastoo qaylida inay iska dabayaacaan ayagoon garanaynin waxay yihiin soo ma ogidin aakhiru zamaanka sida nebigu sheegay sal lla alay wasalam shaytaan intuu mara bini aadan kuu soo gashado oo hebelkii aad taqaanay isu soo ekaysiiyo oo uu kula fadhiistoo kuu warramo inaad ka tegi inuu kaa tegi oo markii lagu yidhahdo waryaa kula joogo war ninkii hebel ahaayo aqaanay oo nin magaciisa laakiin suuradii ninkii hebel ahaa baa ila fadhiyo intaa ii sheegay war shayaatiin baa ka soo baxaya muxuu ahaayey warbaahintan iyo barahan la isugu yimaada iyo nin kastoo ka soo bixiyo koox kastoo ka soo baxdaba haddaad dabayacdaan maalinta dambe shaydaankiiyo sidiisa u mutaxan baa isa soo taagi ya oo mara sheekh soo gashaday sidaas daraaddeed waxaan la daba yaacayo ha la iska xaqiijiyo qodob kale qabsadoo afkaarta noocaasa taariikhiyan marka dib loo raaco waa madhalays afkaarta khawaarijta iyo takfiirku waa madhalays ummadda shar mooye khayr kuma soo kordhiyaan bal taariikhda dib u raac maalinkii saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam ay gaalo kusii jeedeen oo la dagaalamayeen saxaabadii bay laayeen saxaabadii bay intay gaalaysiiyeen bay laayeen ummadda muslimka inay laayaan oo gaalaysiiyaan oo dhiiggooda bannaystaan mooye khayr kaloy taariikhda ummadda kusoo kordhiyeen lama hayo su-aal baad isweydiin kartaan si fudud su-aashu waxay tahay 40 sane wadaadadani ay leeyihiin xarakadani waan qarsoonay oo caalamkan indhaynayno kor baan ka fiirinayn ya 40 sano maxay qabteen bal isweydiiya aw masaajidka dhiseen aw aqoontay u gargaareen ya aw jaamacadaha dhiseen aw gabdhaha xijaabeen aw diintay faafiyeen dhowr wadaadoo 40 sano kadib intay isa soo taageen 40 sanaano adduunka kor ka fiirinayn oo kor markaad ka fiirinaysa maxaa qabanaysaa waa fikir caqiim awal fikir caqiim ma dhalaysa waa wax ma keeno waxna ma kordhiyo laakiin ahkaambu meesha la fadhiya waa gaal diinta laga baxay halkan intaas la fadhiya marka natiijo ma keeno markuu inta ka sii kordhana saan idin sheegay cidda uu ku wajahay uu leeynayo dhiigeeda daadinayo dalku burburinayo waa muslimka meel fog aadi maayo marka afkaarta noocaasa natiijo ma leh waliba waxa aad iyo aad isweydiin u leh tawqiidka iyo waqtiga hadda xarakadan la ilaamiyay iyo meesha laga ilaamiyayba shaki badan bay abuuri kartaa xagee laga ilaamiyay
يا ومصر مرحلة يا وقتك هذا مصر يكون شرط معيته ururradii iyo xarakaadkii ay gaaladii u yaqaaneen qunyar socodka kuwii baa hilfaa loo laabaya oo sujuunta ka buuxo qaxay waa kuwii qunyar socodka loo yaqaan ee u yaqaaneen gaalada iyo wixii la socdo war kuwii sida ahaa marka heerka la marinayo mid rumaysan dawladdan inay gaalo tahay oo shacabkani gaalaya yaa intuu qaahire ka istaagay buu warkii xilwaansaday قالاتهين أيها الناس ندعوكم بدعوة واحدة ومقولة واحدة اعبدوا الله ما لكم من الله غيره حقيوي وقاهرة ومصر مرحلة هذا مريزنا وقتي سو شكي وين ما أبوري كرتو ولي بوحدو تام وررضا نوعا أو كلاء قالوا صيئوا استعمالا ويقانا سيدا اللي يرد اللي يقول له قوينا ولا يقانا sida loo tajniidiyo oo loo isticmaalo dadkeeda loo shaqaaleystona waa la yaqaan war la yaqaan waa in badan oo kamid oo dhalinyarada hadda dab ku daadinaysana waa barnaamij mukhtalaq oo la abuuray waa korkana shaati ka xiran islaamkii baan soo xilinaynaa diinta islaamka hal la raadiyo in al hukmu illa lillah wa shaatiga la xiray hoostana maxaa ku jira abeesooyin baa ka buuxa abeesooyinka inaydan cunin qaar far badan baa baabaaye نويه الرجمنينا تردارن كيجو وحويان مرحلة أذك بالمرة يا روح مسلم كان أبها هي تلاوة أو قاضي إنه بقول جور كفير صو هذا كفير صو ويدو لا تلومن إلا نفسك هل قضبت كوبت بعد بإذن الله تبارك وتعالى علمك الشرعي كبرته علم هذا نكون حبنا هذا تردارن كيجو قدام مين تاو وأركيسان وحلوميي دت كان هذا أركيسان وويل يرو جاهلوا صوما ويل يرو دوري لباتن شرع وحدنا أقوى شرعية عن الله صومينا صوما التاريخ لما كانوا قال لي أقوى شرعية عن الله دوري لباتن شرع وخبرات ماله وهي أرجني ماله أقوى شرعية أنا ماله كلية زراعة وحكبة حي محوها وحبرنا ولي بماج أنتوا صن كذا نبوا كبرت نين كاسا فكر كتكفير كي هجرة نينك بالوريي بسليي أركب نينكاس ولله بارد كود داريه ما وحاس واحد دين لقى دين كرا وحاس دين لقى دين كرا هاللوجو هنا خطرنا هيسجليننا جهلي جاء وشيء وجوه الرئيس سببته وأي حماس كوضع الصعدة لوجو يدا نوع عنه كلا ساس درادد وحبرتا ودين تبرتا وفريستا وأقاني يشا وأصوشي الله أو كتابك يا قرآنك iyo saxaabadii iyo salafkii iyo fahamkoodii u laabta halkaas way badbaadadu meeshay ku jirto culimadana ku xidhnaada xataa hadaan aqoon lahayn culimadu umadu u leedahay ee lagu yaqaano alla ka cabsiga iyo aqoonta lagu yaqaan kuwa ku dhag xagay mareen wad badbaadi xataa hadaan aqoonteedii lahayn ninka aqoonta le qabso ibn al-qayyim alayhi rahmatullah waa ku gabagabeeyo dadka saddex buu ka dhigay intaan idin ku soo gabagabeynay saddex buu ka dhigay wuxuu yiri nin waa nin indhalaho indhihiisa ku socdo ninna waa nin aan indhalahayn laakiin usha loo hayo ninna waa nin aan indhalahayn laakiin iska hagabsanay ninka indhaha leh indhihiisa ku socdo waa caalimka diinta yaqaan waa ninka aan indhaha lahayn indhoolka ee usha loo hayana waa ninkaan aqoonta lahayn laakiin nin caalim adaba socda labadaas way badbaadayaan ninka aan indhoolka ee iska hagabsanaya iska qasbanayana waa jaahilka asagu doonayo inuu jidka iska maro mid afraad oo ka daran baa jira yuya waa mid indhala oo mid sidiisoo kala usha u dhiibtay haddaad indhala-aan tahay laakiin aad adigu iska hagabsanayso taxadarkaaga aad qaadan soo mar waad indhalada is ilaali baad dhihi moogta adaa isku tashan laakiin haddaad indhaladaho mid adigoo kala usha u dhiibatay soo haadaarun kaa tuurmay taxadarkii raxda waad lumin sidaas daraadeed dadkan aqoon la'aanta dadka iska daba dhigtay waa indhool uu indhool hagayo waana afarta xaalo midda ugu xun warka gabagabadiisu waxa weeye allah yana suuqo
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.